dowladda aan taageerno sababtan ku taageerayna astaamaha adiga arkaysid haddaad leedahay dowladda ha lagu taageero aaway dowladda aad sheegaysid teeda kale haddaa waan kuu sheegay dmka waxa laygu soo diray 4 wiil ee harma cad ahayd ee casishay oo meesha ka baxdo la sheegaya anigu waan soo baaraya ilaa berita hadday sax tahay maxaa koos karaya ma dowladnimaan ku taageeri karnaa ma sawiradan na soo gaarayan dowladnimo ku tilmaami karnaa ma waxaan dowladnimo ku tilmaami karnaa nin al-shabaab wasiir ka dhigtay ma waxaan dowladnimo ku tilmaami karnaa madaxweyne ciidamadiisii muxuu ahaa ciidamadiisa waaba iga keentay waaba ciidamadiisii wasiiradiisa loo diiday inay waddan u dhoofaan la yiri mana raaci kartid ee haddana damiirkiisa siin waayo inuu balantaan yiraahdo hooyadin u sheega uu meesha ka haro protest ka sameeyo inta baxay dad aan shaqo ku lahayn ka xiisay see ku dhici kartaa la taliyaha madaxweynaha in la yiraahdo waddan ma aadi kara cabsiyaan ka qabnaa wasiirka gaashaandhiga la diido wasiirka arrimaha dibadda ee shaqada ku lahaa meesha laga reebo dadka la kaxayso saaxiib yaal ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo aad u xiiso badan muuqaalkan waxaan ku gorfayn doonaa ama aan kaga hadli doonaa dalkan muuqaalo gooni ayaa leh mise maxay sataa arrinta hadda soo shaac baxday ee la wareejinayo bal muuqaalkan ayaan ku gorfayn doonaa ay soo dhawaada asxaabta haddii aad channel ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe ay saarto muuqaalkan ilaa galay si dad badan ugu gaaro muuqaalka mar walba waxaa lagu soo celceliyaa ereyga ah beel hebel ayaa leh meeshaas beel hebel ayaa leh meeshaasi Soomaaliya oo dhan waxay ku soo ururtay arrintaasi inta ay fiirin lahayn in waddankani ay gacmaha isqabsadaan ayna wada xoreeyaan waddanka iyagoo gacmaha is haysta kadibna waddanka ay ku maamushtaan awoodda shacabka taas oo ah run ahaantii waddan walba waxa uu awood u ku leeyahay markii aad fiiriso shacabka markaasi waxay xor u helayaan in qofkii ay rabaan ay geystaan kursiga kaasoo waddanka wax ku soo kordhinaya iyagana markaasi fiiro gaara u lahaanaya bal adiga dhegeystow maxay kula tahay arrintani fikirkaagu waa ii muhiim igula wadaag qaybta hoose ee commentiga siina shargay muuqaalkan si dad badan uu gaaro abay waxa weeye waa adiga luuqa ii marin fadlan direct igu jawaab jaawareerska naga jooji maya de waa sidoo macnaha waxa weeye su'aal marka ay weydiiso patient ina u yeelato waa inaad laakiin si direct la fadlan anigu su'aal direct anoo luuq soo wareegana ku weydiiyay adiga ma iga jawaab adoon luuqna ku soo wareegan maya waxna waa la yiri waxna waa fact hadaa fact hayso meeshaan ummad badan oo Soomaaliyeed intellectual ah ku jirto noo soo bandhigay faktiga waa waxa fakti aan ahayn aadan u hayn in la diiday in dadku madaxweynaha safarka inuu u wata la rabay ma beena ma wax fakti la yiraahdo ma hayo laakiin dadku la yiri Maxamed waa ku maasantaa saar waqtigeeda aan siino qiyaas baa la sameynaya moogta maya anigu horta madaxweyne xasan sheekh iyo mataqana groupkiisa midna toon aniga qof difaacayo oo lawyer u ah ma ihi laakiin waxaan u hadlayo waxa weeye waxaan u hadlayo qarannimada Soomaaliyeed iyo dawladda waxna waa danta guud waxna waxa weeye shakhsiyaad danta guud yaa ilaalinaya ma adaa ilaalinayso ninkan dhiqado sheegayo mas'uuliyadda fiiri anagu xitaa jira oo qasanayo annaga loo ka joog ma ilaalinayna mise adigoo ku soco fiiri xalim hal rabaa moogtahay inaan noqoto opposition maxamed su'aasha lagu weydiiyay walaalo gacali ka jawaab maanta dhanka dawareegad ku jirtaa ma qofkii dhiiqada ku jiro qofka idhigays way magac ka tag wax kale ka tag su'aasha la iga jawaab ma qofkii dhiiqada qofku sii galaya leh ku socaa wax saxaya miskan leh ka joog waxba dawladna fiirin annagana fiirin su'aasha iska leeyahay ma qof dhiiqa galaya ka joog laha صح يا wax toosinaya mis qof kale ku sii soco qaladka kee toosan ma su'aashaada laakiin eray bixin oo ma aadan sameeynin qof dhiiqa galay iyo qof dhiiqa ka joog leh waa edegays dadaan ku yiraahdo dawladii oo qaladka galaysa ka joog waxaad leedahay hadana dawladda hala taageero meel ugu raacay email bilawday maxamed awraala warsamow ma soo laabatay dadka dalbanay fadlan soo si maxamed waqti badan naga qaato waa maasantahay saaran waqti badan ay ku sugay saar waad maasantahay saar soo dhawo
حليم وما سنت إن شاء الله السلام عليكم. maxamedow هيا باي soo gabagabay waa mahadsantahay maxamed هيا باي هيا يعني وما سنت warsano ogow anigoo qof ma soo saari karo waa inaan degtay No problem. oo soo laabto waayo degay sugbal السلام عليكم وعليكم السلام. حليمة واكو سلامي دادك ميش كجرو دن وان سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa uu rabay inaan sheegaba waxay dhaafiyay hadalkii way dhaafiyay wallahi ma aqaan waxaan ka hadlo maxay ahayd ilaahay noo daayo armigeena militarigeena wax badan bay qabteen sida aan ka arkayno waa ku mahad celinaynaa ilaahay subxaana watacaala iyagana allaha xafido intaas halkaasaan uga tegayaa waxaan oo laysdaba wado yacni in shacabka lagu sii daayo maxay ahayd in la hubeeyo soomaali qof aan rabin maal al-shabaab inay iska saarto qof shakhsi gooni oo doonaya ma jirto oo gooni u raba waxay dadkan meesha ku jira iyo kuwa furay iyo kuwa meesha isugu yimidba ay jecel yihiin in waddanka al-shabaab ka baxo laakiin hal mid baa jirta midaasna waxaa weeye waxaa la yidhahda wax bartakool la yidhahdaa jira in la maro shacab loo dhiibo hubka aan maxayd magac laga qorin nambarkiisa laga qorin biri meel loo raacanaya aan jirin tababar base aan la siinin oo wax la yidhahda intensive course iyo taas unbaa anagu kasoo horjeednaa laakiin waxaa weeye yaana sheekada turubka jokerka sida kale ana u rogin propagandada aggressiveka ana la iska daayo nabadii nolol iyo CBB waxay kasoo horjeedaan al-shabaab waxaasoo dhan faraha laga qaado marka waxaa weeye anagu waxaan wax reality aan ka hadlaynaa I hope dadka meesha furtay xaliimiya warsamana inay ugu raacsan yihiin intaa uun weeye intaa xasantahay CBB waxaa kasoo horjeednaa al-shabaab hadalka saasa minaha ka wada soomaa minaha uma taageersanid hadalka xoogaa it looks like inaa sida kale u dhigtay saasa propagandadaasaa ku jirta yacni in waay loogu diidaya in shacabka la hubeeyo anagu maana dhihin shacabkiyaan la hubeyn laakiin dhalinyaraa jirta oo shacabka ah oo la qori karo oo maxay ahayd at least 2 weeks 3 week 4 week la siiyo maxay tababar gaaban oo nin walba magaciisa laga qoro magaalada meeshu degan yahay laga qoro qoriga numberkiisa laga qoro si hadhow loola xisaabtamo ay u soo celiyaan ilaa shacabka hadii wadankii oo dhan hub la wada siiyo waa wadan hub wada hubaysan weeye oo yacni taasaan ka wadaa annaga yacni taan leenahay taas weeye marka tan la ku diidan yahayna waa taas weeye marka waxa weeye kulli dadku isku meel bay wax u wadaan laakiin waa la kala wadaa nin walba wuxuu rabaa yacni dadka inay tooda marsadaan marka sidii xaliimo sheegtayna waxa weeye markay madax joogto meesha khalad ay samaynayaanna waa laga hadlayaa marka laakiin waxa weeye yaan la isku dadka yaan la moodin inay dad caqli lahayn oo la dhihin maxay ahayd dowladda yaan laga hor imaan iyo yaan la qalaasayn iyo waxaas iyo waxa dadka meesha u joogaan walaalo macaano special haddaan maxamed ahaan kula hadlo adiga igama dal jeclid saa u dal jeceshaan u dal jecelahay dalka dantiisa iyo dadkiisana ugu raadinaynaa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo maca salaama sahroy hal shay ku daraab intaan safiirka aan u dhiibin fiiri macuusley waa la isku haystaa haa waa la murmayaa haa laakiin mid hala ogaado looma diidi karo ama guul ay gaareen lama dhihi karo ma gaari kartid haa sax way kala dagaalameen dadka ceelashooda qarxiyey muxuu ahaa isku dadkooda dhameeyey nafta ka qaaday inay iska celiyaan waan ku taageeraynaa waan wax fiican oo inay sameeyaan waqti hore Soomaaliya oo dhan inay sameeyso waqti hore la xaraamintan in la iska saaro waa qasab laakiin halisay meesha yaraa ku jirto ya anagoo ayaga taageerayna garab taagan hawshaas waxay ahayd hool inay dawlad qabato laga rabay ma ahayn hool in shacabka hub loo dhiibo annaga waxaan ku jirnaa wadan intaas oo sano dagaal ku jiraan nahay wadan si fudud u burburi karaan nahay